israsaasayn xooggan ayaa maanta waxa ay ka dhacday bartamaha caasimada Itoobiya ee Addis Ababa. kooxda hubeysan ee faano kana soo jeeda qowmiyadda Amxaarada iyo ciidamada dowladda dhexe ee dalka Itoobiya ayaa ku dagaalamay maanta wadooyinka caasimada looga arrimiyo dalka Itoobiya. sidan ayuuna ahaa jawiga magaalada. halkani ma aha Muqdisho sidoo kale Soomaaliya ee waa caasimadii Itoobiya oo Daryanka rasaasta laga maqlayo koonayaasha magaalada. ku raaxaysa reenka kaaraha adiga rabbiga ka bariye. anji amlitono ade waayahay sidee ayay wax uga dhaceen maanta magaalada Addis Ababa? xogo faahfaahsan ayaan daawadayaal idinka haya. maxay ka yiraahdeen booliiska federaalka ee dalka Itoobiya dhacdadii maanta ka dhacday iyo israsaasayntii iyo sidoo kale dagaalkii cuslaa ee maanta ka dhacay meel aan sidaasiba uga fogeyn garoonka ay diyaaraduhu ka haadaan ee Bole International caasimada dalka Itoobiya Addis Ababa. warbixin ayaan daawadayaal idinka haya ee soo dhawaada. haddii aad page-keena ku cusub tahay like iyo follow-da hanagala dhaafin. waayahay meel aan sidaasi uga fogeyn hoolka millennium-ka ee magaalada Addis Ababa ayaa maanta waxaa ka dhacay dagaal khadhaadh oo dad ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. booliiska Addis Ababa ayaana sheegay in kooxda xagjirka ee Amxaarada ee faano sida ay hadalka u dhigeen ay weerar argagixiso ka geysteen maanta bartamaha magaalada caasimada oo dalka Itoobiya ee Addis Ababa. israsaasayn muddo socotay ayaa sababtay dhimashada hal qof oo rayid ah iyo dhaawaca dhowr qof oo kale oo kamid ah dhinacyadii dagaalamayay. walow warar dambe oo gadaal ka soo baxayna ay geeridu intaasi ka badinayaan sida ay sheegeen booliiskuna ay dileen dagaalyahano ka tirsan faano. sidee wax u dhaceen? dagaal foolka fool ah oo hubka guryaha lagala soo baxay. qowmiyadda Amxaarada kooxdeeda faanana ay jilbaha u aasteen gudaha caasimada Itoobiya. ciidankii federaalka ayaa maanta ka dhacay halkaasi waxaana ku dhintay dad fara badan. ma aysan u baranin dadka reer Addis Ababa Daryanka hubka culus ee la soo adeegsanayay. muuqaalo la soo bandhigay ayaa muujinaya iyada oo ciidanka faano ay hoteeladii cuntada laga cunayay kala soo baxayaan hubka culus oo ay ka mid yihiin qoryaha bariduleelada ama BKM-ka ay Soomaalidu u taqaano. waa hawl horey loo sii diyaariyay. waa hawl diyaargarowgeedu uu muddo soo socday. waxayna u muuqataa bilowga howlgal ay kooxda faano ka bilaabayso magaalada Addis Ababa. ciidanka federaalka ayaa maanta ku baraarugay waxa ayna bilaabeen baacsiga iyo ugaarsiga kooxaha ay ugu yeereen argagixisada ee daacadda u ah kooxda faano oo ay markan isku dayeen inay soo qabtaan mid ka mid ah hogaaminta kooxdaasi kadibna dagaalku uu sidaasi ku bilowday. xubnaha kooxda xagjirka ah oo ay horkacayaan Anderge Trakon gashay iyo nin lagu magacaabo Tasema ayaa la qabtay kadib markii ay dagaal la galeen ciidamada ammaanka xilli ay ku guda jireen howlgallo ay ku doonayaan in ay weeraro argagixiso ku geystaan ama ay ka geystaan magaalada Addis Ababa ayaa lagu yidhi war qoraal ah oo ka soo baxay booliiska dalka Itoobiya. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in booliisku ay isku dayeen in ay soo qabtaan argagixisada ka hor inta aysan geysanin falal argagixisnimo, balse israsaasayntu ay ka dhacday xaafadda Bole Kifle waaxda saddexaad agagaarka hoolka millennium-ka ayaa la sheegay in ay sababtay dhimasho iyo dhaawac. goobta ay dhacdadani ka dhacdayna waa meel aan sidaasi uga fogeyn garoonka Bole International ee caasimada dalka Itoobiya Addis Ababa. warka ka soo baxay booliiska ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah hogaaminta faano isku dayeen inay qabtaan ciidanka amnigu kadibna uu sidaasi ku bilowday dagaal toos ah oo foolka foola. waxa ay hal mar ka war heleen laamaha ammaanka iyadoo afarta koonaba xabade ay kaga soo dhacayso. sidaasi ayuuna ku bilowday dagaalku oo ay ku dhinteen dad kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. laamaha ammaanka waxa ay sheegeen inay nolol ku qabteen hogaamiyihii faano ee halkaasi joogay. markii dambena waxa ay warbaahinta u sheegeen in uu ku dhintay isbitaalka dhaawac soo gaadhay darteed ninkii lagu magacaabayay Anderge Trakon. waxaan soo bandhigi doonaa faahfaahinno dheeraada. dadku ha istejiyaan ayaa lagu soo gabagabeeyay war qoraal ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka ee dalkaasi Itoobiya.
dhacdadan ayaa noqonaysa midii ugu horeysay ee laga diiwaangeliyo gudaha Addis Ababa kadib muddo sanadaha oo ciidanka federaalka Ethiopia iyo kooxda faano ay ku dagaalamayaan gobolka Amxaarada. waana markii ugu horeysay oo kooxda faano ay isku dayeyso inay isku fidiso caasimada dalka Ethiopia looga arrimiyo ee Addis Ababa. bishii Abriil ee sanadkii hore ayay ahayd markii uu bilowday dagaalka faano iyo ciidamada dowladda dhexe ee dalka Ethiopia. 6 bilood oo amar bandow ah ayaa lagu soo rogay gobolka Amxaarada xilligaasi oo dagaallo adagina ay ka dhacayeen magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Amxaarada. markii dambena waxaa lagu daray dhowr bilood oo kale waxaana deegaanka Amxaarada ka dhacay dagaallo ay dad fara badan ku dhinteen iyadoo dhowr jeer labada qole ee faano iyo ciidamada dowladda Ethiopia kolba qolo loo awood sheegtay oo mar ciidamada dowladda dhexe ay la wareegeen gobolka Amxaarada oo dhan haddana dib ay ka soo laba kaclaysay kooxda faano oo ilaa iyo haatan dagaal adag kula jirta ciidanka federaalka ee dalka Ethiopia. gobolka Amxaarada ayaa la daalaa dhacaya dagaalo saameeyay nolosha dadka ugu yaraan 80 qof oo muslimiina ayaa si badheer loo dilay iyadoo loogu soo gabaday in ay rabshado halkaasi ka jiraan waxaana falalkaasi geystay dad aan haybtooda la garanaynin sida ay dhawaan sheegeen golaha sare ee muslimiinta dalka Ethiopia. waxaan jecel lahay inaan kusoo gabagabeeyo muuqaal ay faafiyeen Jabhada faano oo ay soo bandhigeen dhawaan waxaana ka muuqanaya ciidamo ay ku sheegeen kuwa federaalka oo dagaal ay ku qabteen sida ay sheeganayso kooxda faano. waxaa muuqaalkaasi laga dhex arki karaa ama ku jira boqolaal dhalinyaro ah oo la feedhaqaawiyey kuwaasi oo kooxda faano ay sheegtay inay yihiin ciidankii federaalka ee daacadda u ahaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ay ku qabteen furimaha hore ee dagaalka. gobolka Amxaarada waxaa ka jira kacdoon iyo dagaal aad u qadhaadh oo u dhaxeeya qowmiyadda Amxaarada kooxdeeda faano iyo ciidanka dowladda dhexe ee dalka Ethiopia. dowladda dhexe ee dalka ayaa waxa ay ku eedeysay kooxdan faano inay tahay koox argagixisa. xasuusnow kooxdan faano waxaa loo hubeeyey oo loo sameeyey isla markaasina hubka maanta ay kula dagaalamayaan dowladda dhexe loo siiyey in ay la dagaalamaan kooxdii TPLF ee ka dagaalamaysay gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka Ethiopia. way daawadayaal intaasi ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo qodobkeenan ku mahadsanidin la socodkii.